raadiyo horta wuxuu dhalay raadiyaha la iska arko TV uu dhalay TV-ga uu dhalayna nin wadana gurigiisa ku egyaa u qabtaa TV-gana wuxuu dhalay internet oo gabdhihii baadiyo joogaaba nawaalay hal doollar ii soo dir qadkan ku shubanaha cawda daraan miyaa tahay irbad waxaa la socodsiinaya wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho magacayga waxaa la Axmed Ulow Faarax idaacada dhegeysigeeda waxaan bilaabay 1960 anigoo jooga magaalada Beledweyne sida raadiyo Muqdisho sida BBC iyo raadiyo Hargeysa saddex bis ka jirtay ma jiraan taariikhan hadda aan taaganahay waa raadiyaasha waa yaraayeenba maqaayadahan sida baarlayaab lagu leeyahay iyo meelo aan badan raadiyaha yaale kuwaas gaartay BBC ga dhigtay dadka raadiyo ma haysan ninka raadiyaha helo wuxuu ahaa nin macnaha wasiir camal kulan waxaan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda Beerlula hadda caawa ninka jooga meel naga fog oo beergido ka tahay idaacadu dhegeysanaya kan jooga luuq jolow kan jooga booco kan fadhiyo jooga idaacada hadda meesha suran waa dhegeysanaya si kala ka qof loo jiro warma sheeko inuu gurigiisa ku ogaanaya marka raadiyaha waa ku jira manfacaad aad iyo aad u badan oo ilaahu og yahay ka ogaan tafsiirku ku jira fasurna fi sudur sheekha dhax fadhiya maanta qaal Allah ta'ala qaal rasuulullah qaal mas'uud ku hay wax aan la helin male wiilad dhigaya caafimaad wiilad dhigaya psychology cilmi nafsi ilma uu sheegaya marka dhafna lagu qaba halkan waa BBC wadii kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ku FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo internetka ciwaanka uu yahay BBC idaacadana waxa ugu daraadan maalinka anaka warkaamooga naliyay waxa la dilay Cabdilrasiid Cali Sharmaake maalin xatan ah maalin aad iyo aad xatan u lahayd oo murugan dawladda sharci ahayd oo soo doortay ma gilay nimaaba ku dilay madaxweynaha ascaanood markaas waxay maalin murugan ahayd marka aqbaraadka ka heli jirnay wax la xisaab kara maaha wax hadal iyo miis iyo kursi soo koobi kara maaha waxa waa dagaaladii dibadda ka socday ay tabin jireen soo joogay sida kii Pakistan iyo Hindiya kii Vietnam iyo Mareykanka marka kuwaas waxay ugu reebeen argagax lafteeda mar alwaa waxa dhimatay 5 kun oo ruux annakana Soomaalidan nahay heebaan inta guriga wala aadi jiray oo dadka saaba ma ahaan marka argagax kuwaas lagu abuuray ma ogi annaka idaacada ka soconayna dhul degan waxa salon oo nabada ina joogno waxa loo hooyay leeyihiin iyo aabo raadiyo horta wuxuu dhalay raadiyaha la iska arko TV uu dhalay TV-ga uu dhalayna nin wadana gurigiisa ku egyaa u qabtaa TV-gana wuxuu dhalay internet oo gabdhihii baadiyo joogaaba nawaalay hal doollar ii soo dir qadkan ku shubanaha cawda daraan miyaa tahay irbad sheedoogu wuxuu u dhalay ciida ka batay oo qaata laga tagay hadda manfacaadkooda sii batay هذا قف بيجي جوك سواء كله واحد حسب ما مقشة ودي بيجي جوك وقت أنت لا هسه مركا شاديها وكورني وكبعي فرعي بدون ويا شيء لكن ويا كتجي لا يهي شيء ويا كتجي لا يهي واسع أبي هاي وحصل نقول سبكان